wafdiga dowladda federaalk Soomaaliya ee ka qayb galay shirkii Djibouti oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen shirka maalmihii u dambeeyay dalka Djibouti ugu soconayay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo waliba Somaliland. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo hogaaminayay xubnaha guddiga dowladda federaalk Soomaaliya ayaa shaaciyay in shirkaasi laga gaaray guulo hordhac wasiirka ayaa tilmaamay in kulamada ay yeesheen gudiyada farsamada ay ahaayeen kuwo lagu abuuray kalsooni dhisid iyo waliba in ay socdaan wadahadalada dowladda federaalk Soomaaliya iyo Somaliland. shirka ujeedadiisa muhiimka oo loo socday waxay ahayd sidaan idin sheegay in dib loo bilaabo wadahadaladii dowladda federaalk Soomaaliya iyo Somaliland, laakiin guddiga loo saaray arrinka waxay garteen inay muhiim tahay laba shayba in la sameeyo intaan shirka la gelin. in laga bilaabo kalsooni dhisid iyo in wixii ka dambeeya loo gudbo arrimaha runta ah oo masiiriga ah oo meesha loo yimid. qodobada kalsooni dhisidda kadib arrimo kale oo qayb ahaana lagu lafaguraayay waxyaabo tabashooyina oo nooga soo gudbay dhinaca Somaliland iyo arrimo kale oo aan islayn iyaguna waa muhiim ayaa lagu lafaguray. hawsha gelidda mowduuca rasmiga oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay ka wada hadlaan kala maqnaanta la kala maqan yahay halkeeda si run ah loo aado aakhirkana lasoo dhiraandhiriyo halkaas. intaas markaan iraahdo shalay ayay soo laabteen wafdigii Somaliland, annaguna maantaan soo laabanay. howlahaasi waa noo dhammaadeen sidaad midhaamiyada ka arkayseen. xalay la sameeyay munaasabad arrinkaas ku aadan shirka hore gabagabeyntiisii. howlahana waxaa loo qorsheeyay inay guddiyaal farsamo galaan. guddiyaashaas oo ku kulmi doona Djibouti 14 beri gudahood. guddiga wasiiraduna ay howlaha guddiyada dusha ka ogaan doonaan, ay la meelgeyn doonaan. guddiga qaybtiisa heerka wasiiradu wuxuu laaban doonaa isaguna si uu u hubiyo howlaha guddiyada u qabsoomay iyo inay siiyaan wixii talo ah oo hawsha meelgeynteedu ay u baahato 45 cisho kadib. dhankooda wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Aadan iyo xirlalaha guud ee qaranka Soomaaliyeed Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo qayb ka ah guddiga farsamada wadahadalada dowladda federaalk Soomaaliya iyo Somaliland ayaa iyaguna ka warbixiyay shirka iyo waliba waxyaabaha laga filan karo. hadalada waxa laga hadlay wax xasaasi weeye, waa shay muhiim u ah labada qof oo wada hadlaya. marka waxa ka duway waxa weeye waa jawiga meesha ka jiray. dowladda Djibouti oo qayb libaaxda ka qaadatay, not only in Djibouti shirka lagu qabtay, laakiin Djibouti waxay ka ahayd shirka xiriirintiisa isfahansiinta guddiyada mararka qaarkood haddii aragtida lagu kala duwanaado. waxaan filayaa intaas ugu muhiimsaneed. waxaan isleeyahay aad bay uga duwanaa shirkii hore. shirkan wuxuu shirka hore uga duwan yahay heerka ka qaybgalka dhinacyada meesha isugu yimid. dhinaca Soomaaliya, dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. waxay ku tusaysaa muhiimadda ay dowladda federaalk Soomaaliya u lahayd ka qaybgalka shirkaas oo ah in ay diyaar u ahayd in laga gaaro la isu soo dhaweeyo heshiis ama wadahadalada ay soo dhawaadaan. waxay ku tusaysay dowladda federaalk ee Soomaaliya heerka ay u rabtay iyo ka qaybgalkeeda heerka uu ahaa. dhinaca kale maamulka Somaliland laftooda ka qaybgalkooda wuxuu ahaa ka qaybgal aad u sarreeya. madaxweynahoodii iyo guddoomiyaha guurtada iyo wasiiro iyo dad khubaro ay keeneen.
muhiimadda ay saartay dowladda Jabuuti ee walaalaha aan nahay ilaa madaxweynahooda ilaa iyo dowladooda iyo shacabkooda wadahadalladaas aan ku galnay Jabuuti kaalmadii iyo taladii ay ku lahaayeen lafteeda waxay ahayd mid aad qiimo weyn u leh adduunka kale sida Mareykanka iyo EU-da IGAD siday u qiimeynayeen inay wadahadalkan uu noqdo wadahadal najaxo waxay ahayd ay lafteeda tusaale kale oo tusaya wadahadalkaas inuu ahaa mid qiimo badan waxaa kaloo muhiim ahayd sida uu xalalaha u sheegay dadka wada hadlayay dad loo kala tarjumayo ma ahayn dad hal luqad ku wada hadlayo oo walaala oo muddo un kala maqnaa laakiin isu soo hiloobay oo wax doodooda ay ahayd dood runtii ay ahayd dood oo wax dhisaysay wixii ka soo baxayn ay ahaayeen horumar bilow ah oo bilow u noqon doona wada hadallada soo socda ee insha Allah tacaala gudiyada loo saaray waxaan rajaynaynaa gudiyada la saaray inay wax weyn ka qaban doonaan isu dhawaanshaha dadka walaalaha ay kala fogaaday